booliiska magaalada Sandnes ee dalka Norway ayaa gacanta ku soo dhigay nin 30 jir ah ka oo xilli habeen ah bas ku dhex tooreeyay wiil 20 jir ah ka oo la dhigay isbitaalka. Booliiska ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay xilli habeen ah wiil 20 jir ah oo lagu dhex tooreeyay bas ka dhex shaqeeyo magaalada Sandnes ee dalka Norway. Waxa ayna sheegeen in si degdeg ah ay goobta ku soo gaareen iyagoo sheegay in ay ugu yimaadeen wiilkan dhaawac ah oo dhiig baxayo, waxaana si degdeg ah loogu gurmaday wiilkii dhaawaca ahaa ka oo loo qaaday isbitaalka magaalada Stavanger. Waxa ayna boolisku sheegeen in markaa kadib ay baadikoob u galeen ninka dhaawaca geystay oo ka baxsada goobta, waxayna boolisku adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo sidoo kale rondooyin aad u badan iyagoo ku guuleystay in xilli siqdhexe ah oo abbaarihii 1:00 habeenimo ay ninkan 30 jirka ah ee dhaawaca mindida ugu geystay wiilkan da'da yar soo qabtaan. Waxa ayna qareenka booliska Amelia Hoga sheegtay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkan 30 jirka ah kadib markii ay adeegsadeen diyaaradaha droniska iyo ciidamo badan oo boolis ah kuwa oo dabagal ku hayay ninkan. Waxa ayna intaa ku dartay in ay hadda xabsiga ku hayaan oo su'aalo laga weydiinayo dhibka uu u geystay dhibanahan 20 jirka ah ee uu mindida dardaray. Dhibanahan 20 jirka ah ee dhaawaca loo geystay ayaa hadda waxaa lagu tabiibayaa isbitaalka jaamacadda magaalada Stavanger isaga oo sidoo kale warbixin kooban siiyay booliiska. Ninkan 30 jirka ah ayay boolisku sheegeen in ay horey u muuq iyo magac garanayeen, waxayna sheegeen in hadda lagu hayo xabsiga. Waxayna sidoo kale boolisku xaqiijiyeen in ay wareysanayaan dad goobjoogayaal ah oo markhaatiyaal ah kuwa oo ku sugnaa baska dhexdiisa iyo hareerihiisa markii uu dhibkan dhacayay. Intaa waxaa dheer oo ay boolisku xaqiijiyeen 20 jirkan la dhaawacay iyo 30 jirkan wax dhaawacay labaduba inuusan jirin xiriir ka dhaxeeyay. Halka warka kuwooda ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.